بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موقال كاني وحان وجهد لدونا بإذن الله هدي الله وإدمو دعاء لو جود دعاء أراسك عصب هذا بقى محاصرنا إن لو جود دعاء عروسك عصب وحال لو جود دعاء تنأ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما الله اسكين بركايو لبدينان عروسك يا عروس ده وبارك عليكما كركينن الله بركايو وجمع بينكما دحدينني الله كلميو في خير دحدين خير الله دغو dad isfahmay dad ubad khayr qaba kala helo Allah idinka dhigo weey ducadaas ayaa sunna ah in loogu duceeyo caruuska iyo caruusada marka ugu horeyso oo nikaaxooda uu dhaca caruuska iyo caruusada ayuu ku socdaa dardaarankan waxaan kula dardaarmi lahaay marka ugu horeyso naftayda in naftoodaba cabsida Allah subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay caruuska iyo caruusada waa safiiro oo u kala jooga labada tol ama labada reer gabadha waa safiirad u joogta gurigaas tolkeeda ninkana waa safiir u jooga gurigaas tolkiisa hadaba waxaa laga doonayaa in si wada jir ah reerkooda ay u dhaqdaan oo Ilaahay ay ka baqaan ay daacad isku noqdaan diriska ay dhowraan qaraabada ay xariiriyaan labada famil waa inay macnaha kala ilaaliyaan gabadha familkeeda markuu soo martiyo ninka waa inuu soo dhaweeyaa oo wiji farxad leh uu ku soo dhaweeyaa sidoo kale ninka sidaas oo kale markuu familkii soo martiyo sidaas ayaa laga rabaa gabadhan inaysan iscuncunin isxanaajinin saddex nacab aysan noqonin waxaa laga rabaa labada lamaane ama zawjka iyo zawjadiisa ama caruuska iyo caruusadaba waa in si kalsooni leh guriga ay u dhaqdaan oo markaasi sida shariicada islaamka ay qabto waa inay u dhaqmaan gurigooda guri oo noqdo guri muslim guri khayrka uu soo galo oo noqdo musiigada laga daarin salaada laga oogo martida la sooro martida hadii misalan ka waran oo wajiga loo tubaayo wajiga loo bedelayo birim ku soo laab maanta hadii martida ay waji fiican kala kulmin waxa weey waxa leedahay tan wajigeeda mar dambe Ilaahay ima geeyo waxa arkaysaa gabdhaha qaar kood sodaxdo kale ma jeclo ninka hooyadiisa ma jeclo ninka way rabtaa way jeceshahay laakiin geedkii uu ka soo farcamay oo ah hooyada ama labada waalid ama aaba ama hooyo markii u soo martiyaan gabadha wajiga ay kududaysaa way karaahsanaysaa guriga waxa kirada ka bixiyo ma ogo waa wiilkoodii waxa biilka bixiyo waa wiilkoodii waa aabe iyo hooyo wiilkooda weey ayada meesha waxay ka tahay howlwadeen darabal ay ka tahay markaas darteed marka waxa loo baahan yahay caruuska iyo caruusada inay dadaalaan reerkooda si daacad ay u dhaqdaan waajibaadkii lagu lahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waajibiyana sidii loogu talagalay inay ka soo baxaan ilmahoodana ay tarbiyeystaan markii Ilaahay ubad siiyo ubadkoodana ay tarbiyeystaan oo diin islaamka ay baraan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay baraan diin islaamka ay baraan rasuulkooda Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay baraan ayaa loo baahan yahay muuqaalkaygana intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh